madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast shirka shanaad ee madasha iskaashiga wadamada midowga Afrika iyo midowga Yurub. madaxweynaha Soomaaliya iftuu hogaaminaya oo si weyn lagu soo dhaweeyay dalka Ivory Coast ayaa waxa uu kulamo la qaatay madax kala duwan ee wadankaas kuwa oo kamid ah madaxda wadanka iyo kuwa ka soo qayb galay shirka halka ka dhacaya. wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa wuxuu faahfaahiyay safarka madaxweynaha iyo shirka uu ka qayb galayo madaxweynaha dalka. marka midka hadda la qabanayo 3 sano markii la joogo mid baa la qabtaa midkaasna waxa la siiyaa mowduuc midkan waxa mowduuc la siiyay dhalinyarada sidii fursad loogu abuuri lahaa si mustaqbalka loo xoojiyo marka mowduuca ugu weyn ee laga wada hadlayo oo waliba ay ka soo qayb galeen dhalinyaro wadamada qaarkood ka socda labada qaaradood ka socda oo ka hadlay shirka marka dhalinyarada ayaa xoog la saaraya laakiin mowduucyo badan ayaa la isla soo qaaday qodobada laga hadlay waxa weeye in dhalinyarada fursad loo abuuro mid aan ku sheegay si dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo horumarka mustaqbalka uu kor ugu koro laakiin waxa yaabaha kale ee la isla soo qaaday waxa kamid ah in dalalka Afrika iyo kuwa Yurub la ilaaliyo wadajirkooda iyo madax banaanidooda wadajirka dhul ahaaneed ee dal walba iyo madax banaanidooda in la ilaaliyo waxyaabaha kale la isla soo qaaday waxa kamid ah in la dhowro oo laga ilaaliyo dalalka faragelin dibadda ka timaada oo siyaasadda gudaha soo fargashata in laga ilaaliyo ayaa kamid ah arrimaha la isla soo qaaday arrimaha la isla soo qaaday waxa kamid ah in la diido ama laga hortago isbedel dawlad lagu sameeyo ayadoo aan loo marin dastuurka dalkaas marka arrimahaas oo dhan waa la isla soo qaaday laakiin wali hadda go'aanka dambeysay heshiis ma dhicin berita la filayaa inuu ka soo baxo. shirweynaha hogaamiyaasha midowga Afrika iyo midowga Yurub oo 2 maalmood socon doona ayaa waxa looga hadli doonaa arrimo dhowr oo ka mid yihiin arrimaha ka taagan Soomaaliya iyo Afrika oo idil.